baraf baa da-aya, hawadu waa qabow. isu soo noqod wacan, sanad wanaagsan ayaan ni leeyahay. runtii ismaana arag sanadkii hore suukay dambeysay ayaan jeclahay. haddaba intaa kadib waxaanu haysanaa 24 saacadood anagu haddaanu bini aadan nahay, adduunyada meel kastoon kaga nool nahay. 24 saacadood 8 saacadood oon hurnaa, 8 saacadna waa shaqo ama iskuul. waxaa noo haray 8 saac. 8 saac ee hartay saacado badan waa cuntadii, waa safarkii shaqada ama iskuulka, sii socod soo socod. marka inta kale hartay qofkii family leh, familigii waqtigu u baahan yahay. marka runtii waqtigu bini aadanka aad buu u yaryahay markaad eegtid. laakiin dad baa ka faa'iideysta waqtiyadooda, aniga kama mid ihi. marka waqtiyada dadka kaga faa'iideysta maxay tahay sirta ku jirta, sidee u faa'iideen, sidee xagee ka helaan waqtigaas, yaa dadku isweydiiyaa inta badan. anigana sidoo kale waan isweydiiyey. waxaa jirta waxa la yiraahdo caadeysi ama la yiraahdo habits. qofka waxbuu caado ka dhigta. inta badan marka la fasirayo caadeysiga ama habitska waxaa la yiraahdaa qofka wuxuu caado ka dhigtuu noqdaa. hadduu qofka caado ka dhigto inuu buug qoro maalintii, yani waqtigiyada yar ee haray 4 saac ama 3 saacadood, hadduu saacad ka mid ah uu maalin kasta buug qoro ama wax iska qoro oo yani sheeko yar qoro, uu ku dadaalo inuu noqdo qoraa, qofkaas wuxuu noqdaa qoraa. marka waxaa weeye qofku wuxuu caadaystuu noqdaa. hadduu wax kala geliyo meesha, waxaas ayuu noqonaya. sidaa awgeed waa muhiim in uu qofka si xikmad leh u doorto waxyaabaha uu caadaysanay. inteena badan waxa laga yaabaa inaan wax iska caadaysano, laakiin waxaasi aynan dooran ama aynu ku dooran xikmad. waanu dooran laakiin si xikmad leh umaana dooran ayaa laga yaabaa. sidaa awgeed waxay noqonaysaa waqti aad lumisay. waqti la lumiya haddii laga hadlayo, anigu waqti badan iga lumay. haddaba in qofka inuu caado samaysto waxay qaadataa muddo dhan ilaa 6 maalmood. way ka yaraan kartaa, wayna ka badnaan kartaa, laakiin qiyaastii inta lagu soo marka la fiiriyey waa 6 maalmood. 6 maalmood qofku wuxuu uu sameeyo caado u noqotaa, yani waa wuxuu sii wadi karo oo hadhowtu samayn karo. caadadu inta badan waxaa la yirahdaa waa wax markaa samaynaysid aadan ka fikirin. example waxaa ah markaa subax soo kacdid, inteena badan waxaanu caadaysanay in aynu ilkaha cadaysano. fikir badan iyo caqli yani ma ka fikiraysid. waxay noqonaysaa wax aad u samaynaysid si toos ah, automatically aad u samaynaysid. sidaa awgeed haddaa wax caadaysatid way kuu fudaanaysaa waxaas inaad samaysid adigoon ka fikirin, yani u baahnayn fikir badan adoon gelin. qofka hadduu doonaya in wax caadaysto waa inuu qorsheeyaa. waxay sahlaysaa in aad qorsheysid. qorshe inaad dejisid waxay kuu sahlaysaa caadadaada inaad fududaysatid. sida haddaad doonayso inaad gymka tagtid, inaad habeenkii dharkaagii, kabahaagii inta boorso kusii ritid, albaabka sii dhigatid, subaxii markaad waxaaga kala soo dhamaysatid, quraactid, waxaa laga yaabaa inay kuu fududaato inaad sii qaadatid boorsada oo hadhow markaa shaqada ka timaadid ama aad iskuulka ka timaadid aad soo martid gymkii si sahla. haddiise aadan saa usii diyaarin ama saa usii qorsheyn, way ku adkaanaysaa. sidoo kale haddaad doonayso inaad wax akhriska aad badisid ama aad wax rabtid inaad caado ka dhigatid wax akhriska, inaad tidhaahid habeenkii markaan casheeyo 30 minute waxbaan akhrisanaya, yani waa wax aad waxa weeyaan qorsha u samaysay, xilli baa u samaysay, waxbaa ku xirtay. marka way adkaanaysaa inaad ilowdid ama aad iska daysid. yani markastoo cashaysid waxaa soo xasuusanaysaa cashada kadib wax akhris. sidoo kale haddaad tidhaahdid subaxii markaan quraacdo 30 minute waan soo lugeynaya, sida markaa ku xirtid markastoo quraactid maskaxdaada waxaa kusoo dhacaya socodkii 30 minute ayaa ii haray, waa inaan soo socda. marka in qofku saa uu qorsheeyo, uu magacaabo, uu boos geliyo oo ka mid ah nolol maalmeedkiisa, waxay sahlaysaa in caadadii uu qofka la qabsado. runtii qofka markuu caadada la qabsado, waxaa la yidhaha ficil kasta oo lagu soo celceliya wuu fududaada. sidaa awgeed haddaan caadaysano wax wanaagsan, naftayna anfacaysaa. haddaan caadaysano wax xunna, naftayna ayay dhibaysaa. waayo ficil kasta oo qofka uu ku celceliyo way u fududaataa inuu sameeyo adoon ka fikirin. sidaan soo sheegnay,
qofki kama fikirayo inuu subax inta soo kaco ilkaha cadaysto automatically waxa uu sameynaysid sida awgeed dadku meelaha isku dhaafeen waxa weeyaan qofka inuu doorto caadada waxa uu caadaysanaya inuu si xikmad leh u doorto sida awgeed ayuu ku gaari karaa ama uu ku dhaafi karaa dadka kale ama uu ku gaari karaa waxa uu u socdo haddaan soo ganaanido caadaysiga ama habitka in la samaysto waxay ku jirta qorshayaasheedii sanadka cusub marka waxaan is iri sanadkan cusub waa in aan caafimaadka nolosheeda ku dadaala sida inaan gym tago ama aan ordo marka labada waxaan doortay orodka marmarsiyo badan ma laha waa gymka waxa kaga joogi karta marmarsiyo ah xaafadeydii ma joogo safar baan ku jiraa boorsadii baan guriga kusoo iloobay waxyaabahaas oo dhan laakiin haddaad tiraahid maalin kasta ama waxaan wiigii 3 mar 4 mar baan ordayaa يعني gurigaaga markaad timaadid waxaa u baahan tahay inaad dharka gashid kaba gashidid aad dibadda u baxdid waxa kaliya ee markaa kaa reebi kara waxay noqonaysaa in ay hawadu qabow aad tahay ama kuleel aad tahay maalintaasna waxaad tegi kartaa gym sidaa awgeed maalimihii hore waa ii fududeed waxaa laga yaabaa wax kasta markay cusub yihiin waa fududahay laakiin marka xoogaha 2 week waday bisha hadda waa 3 week ayaa dhamaatay malinaya markaan 2 week waday yaa waxaan arkay in culays isoo fuulaya oo aan ka caajisay waxaan marka eegay maxaa ii fududeyn kara maxaa ii dhiirigelin kara inaan sii wado orodkan marka wax runtii extreme aan ku fikiray oo ah in aan marathon ka qayb galo oo sanad kasta ka dhaca Sweden waxay leeyihiin marathon 42 kilomitir anigana 5 kilomitir hadda ayaa Allah ku ordaa 28 minutes 30 minutes marka waan yara fiiriyay waxaa la yiri qofku waa in uu isku diyaarinta marathonka la isku diyaarinayo waa inaad orodid weekii 60 kilomitir ama 50 kilomitir ilaa ka gaaraysid haddaba arrintaas ayaan ku guda jiray weekii dambe ayaan kasii wadaynaa waxaan wiil Soomaali oo ka qayb galay marathonkan ayaan la kulmaynaa isagaan wareersanaynaa weli maana qaadanin go'aan laakiin oo arkaynaa meeshay ka dhacdo waxaan is arki doonaa wiiga dambe waa mahadsantihiin soo dhawaada sidaa iyo nabadgelyo